dhammaan aad baan u salaamaya anoo ah fanaankii cali cidiidi ismaaciil xuseen سكوت official مش فنانك مش أكتر فيلم ستارك علی cidiidi ismaaciil xuseen dhammaan aad baan u salaamaya as I can think this is better to be talking in Somali niyadeyda on Somali waan iskaga suganahay magaalo la yidhaaho baran oo ka mid ah Soomaaliya gobolka Sanaag oo singeligan aad u dira hartigoo shan toban sano baskacina tuulo baadiya marka tuuladii aan baabuur kusoo dhaafi lahaa baadiyaha baabuurta markay safrayso niyad joogsata kuwa edeela oo la yidhaahdo Ismaaciil dalsan Yuusuf Cabdikariim Ibraahim xaawa geena laqa Saciid Ibraahim xaawa Saciid geena laqa Ibraahim bay dhasho وإلى طيب لبد وكيودي لبد وابكر بيدي لو بكر حاول كان أنا وابكر لبد وكيودي هو ولد إدلا يويري يويرين أبي المركز إنجليز كله تابع يويرين سيجاري قلب العقد كل سايو 0.1 العقد ويجا ولا قارن حاجة بطير إنجليز كصوت 0.1 سنتيمتر مايس بس يا رب ما كوي بسلو ددان الجيران من طريقة توجيهيو باك سيجار كايا كصحة كان العقد ويقول سنجوري حتى عن كهولي بيديها صبابورت بس كمان صار أفضل ميش تاجن بيديها باورت ميش تاكسي وإسكا صار لافان بانا مايا بركا عدي بيقول با العقد سنجوري يقول دسي كبروا عشان في عنا من هاك الصيغي يجيرين وانا كل دسينا مكمل العقد شوي بيقال شكال بكتنا يجا قادنا طريقا ددان الجيراني باك كسيار كايا كاشا على صوما دبا عاي مكعاي باللغد علي حديد ما مكعاي مكعاي اللغد روح حديد بكل حديد هطل معاشو أوجي بقات كالله بيرها قات كوالي لا يتلا معنا قات كوالي ربان استعاشي شدو تدكعونا قات بيعونيين الدلين يا ما هو حيو عصب تدخل ردي قادي كسمي سنة آيات قرآن أهو تراها اللهم بدكم يا عبدنا ما تسمي يدكم يخرجكم يخرج أفت مراح لف أنباء الدين الدقوق وأعصم جيت من الجيل عم بك صباح سمها ضدكنا ما كان قاعد انتن صدقكم ما أعصم جيت كقبري كضرب هو وقفك والله بيري اللهم بدكم يا عبدنا ما تسمي يدكم يخرجكم يخرج ما فيها شيء واحد قال شيء هذا كسر السلو يعنت شيء هذا قبل هاي قبل كرني مكاتينس مريكن إدوالبا مريكن تينس عرب إدوالبا دلكودو يو الصومالي مكا يدن كيا بين سياد بحي دلكو يمورغن دلكو يمركي بحين الدون كواحد يمي وحين هنا بقى كسوغوي شاكلا وحن كساق علي شاكلا وحن كساق علي وإحنا كشاكسان إن روايدها هي فيلمان ترويمين باميان إدين تلمامي الصايغة شان يتمسى الله كور مركب شان يتمسى الله كبير مجالة ديو هرتي عن مودو كولمس جبهات كولمس با يويري يسي وصول غالي فاشتي سياد بركة هراجي سياد بليرة وبعيك عن كان شان يتمسى الله مركب
إذا magaalada ku wareegsan oo hooyaday soo qabanay marka 15 sano ka hor Hargeysa ka soo guuro intii Hargeysa aan joogay aabbahay 2 jeer buu yimi hooyadeydii Ingiriiska ka yimi markii u horeysay wuxuu yimid daahir ayaa loo Somaliland madaxweyne ka يعني يا باي سيد صريان وعيد يبدا سمت الحديد وراك ما الحديد وراك وانا بنينا فدال دلحيس وابهل واسي وكان وحي من كل جيبه وحي بس ضبان بايلارك بس وحي من كل جيبه dad badan baa ila arka waxaan waxay ku arkayna dadka indhaha wax ka arkaan maxkamadahan baa indhaha wax ka arka waxayna joogna lagama shaqey maxkamado maxkamad dadka sarayana oran kari maayo arabto wixii meel yaallaba sare wixii sare miiska dultaala saa wixii sare calaa buu yaqaani calaagaasna wuxuu ku saabsan yahay aniga cali digahayga sarkaalnimo ku saabsan yahow oo sareeya sidaa ogeed ba carabtu wixii sareba aniga cali u taqana waxay u taqana carabta calaa wixii sareba dadka indhaha wax ka arkan waa waxay igana maqlo markii aan Hargeysa wasaaradda dalxiiska waa laga sheekeeyay aragti bay dhacdo wax dadku arkan wasaaradda dalxiiska marka agmari waxa ii muuqday dad iyo sagaarooyin oo dalxiiskana jooga wasaaradda dalxiiska sagaarooyin baa jooga xayawaan baa jooga xayawaanka dalxiiska lagu daawado sirkiga carwada iyo joogo dad wadada lagu gulinayo ayaa u dalxiiska iyo wasaaradda dalxiiska ee Hargeysa Somaliland labadaba khatarada ay fanaaniinta iyo faqdada ay sagaaraa oo la jiirayo wadada lagu gulinayo ayaa marka caasimad baan ku sugeynay meel baan naga casbaanaya aabbahay hooyadiisa Israa'iil sababta hooyadii mahad hooyadii kulligan caasimad baa laga sugaya oo dalxiiskana kusoo sugayna dalxiiska markii aan kusii sugayn daahiriga madaxweynaha ahaaya ayaa aabbahay waxay baran ninka hotel dalxiiska iskale ninka hotel dalxiiska waxaa la yidhaha magiisa bilaa break waa nin daarooda hartiyo warsingeliga labreeg baa la yidhaahayo wasaaradda dalxiiska dad wadada lagu gulayo sagaarooyin khatarada iyo fanaaniinta ah oo wadada lagu gulinayo baabuurta sida u jiidjiidho baa ila dadku la arkaan ma hubeen ninka hotelka bilaabriga la yidhaaho waa daaroodka kibray dadkii masaakiinta wadada gogolada markaa rooyadii inay run yihiin rooyad caadi u jirtana malaya magaceeda la yidhaha bilaabriig dalxiiska iyo wasaaradda dalxiiska Hargeysa iyo hotel dalxiiska Hargeysa bariiska Hargeysa dumbulo ka sokeeya hotel dalxiiska waxaa iskale nin la yidhaha bilaabriig oo ah daaroodkan dadka jiirjiiray kibray maxamed abiy maxamed siyaad baray iyo general Morgan iyo Gani maxaad uga tiraaheen daarood Soomaaliyeed bay leedahay maxaaro Ethiopiano xabashi bay leedahay Soomaha
madaxweynihii marka lagu yiri madaxweynihii la yiri daarood baad daaroodka etoobiya u badan marka lagu yiri maxamed siyaad barre waa nin daaroodo cadowgu etoobiya oo xabashiyaba u gacan galay madaxweynihii soomaaliya marka eedaanka yidhaha hayaala farxay maxamed rasuulullah allihii mise maxamed rasuulullahigii ay xabashidu kahaysatay xabashidoo daarooda ahi ay kahaysatee soo noqon waaya madaxweynihii waa cadowgiisa xabashiyo daarooda kahaysteen ii soo noqon waayey iyo cadowga u gacan galay wuxuu ahaa maxamed siyaad bare marka masaajidka marka dad badan masaajidka iyo xajkii soo galaa waxay hosayaan maxamed siyaad bare soo noqon waaya cadowga u gacan galay ayaa masaajidka lagu xusaa diinta allihii mise maxamed siyaad bare ilaana soomaaliya dalkooda ayaa wax walba u qaalisan oo u weyno dalkooda u weyn yahoo dhibic ka mid a haddaan soo qaado soomaaliya boqortooyo maaha way ka weyntay suldaaniyad maaha mamlakad maaha kingdom maaha way ka wada weynto soomaaliya waa ilaahiye ilaahan jirtay iskana leedahay ilaahda waxa la kala oran jiray tincaaro tinniixi tincaws waaq aniga cali inoolaha cali cadim ilaahay naga raalo noqdee siyaad maxamed siyaad bare gani generaal gani generaal siyaad generaal morgan salaad gabayr aydiid gani cali samata baa la kala oran jiray marka inay riwaayaduhu run yihiin waxay ahayd riwaayadu nin la yidhaha bilabrigo ah daaroodka kibri ka mid a xabashidoo soomaalida cadow ku leh marka xabashidu madaxweyneha markay naga kahaysatay layiri waa daarood siyaadii markay kahaysatayna layiri waa daarood xabashida daaroodoo dib umay soo noqon yaxasawadeediyo dib umay soo noqonin dib umay soo noqoninoo cadowgay u gacan galeen marka haya maxamed rasuulullah haddaad eedanka ku maqasho maxamed siyaad bare waxa weeye allihii mise maxamed rasuulullahigii soomaaliga hay cadowga si xabashiya ka haysato masaajidka iyo diinta islaamka maxamedkii soo noqon waayey ee xabashadu ka haysatay baa diinta lagu xusaa marka inay riwaayadu run yihiin waxaad soo eegtaa hodheel dalxiiska marka arag hodheel dalxiiska hargeysa iyo wadooyinka hargeysa iyo adduunka baabuurta dad jiras anaa dadka ka mid ah inta jiraan bay haddana naftii u soo celiyaan riwaayada yuriin hodheel dalxiiska hargeysa soo eego waxaad weydiisaa nin kale magiyey waxa lagu leeyaa waa nin bilaabirigu warsangeliyo daaradoo hartiyo warsangeliya lawaa qodobka kale aan raba inaan wax ka taataabtaan horta waxii igu horeeyey baalay waalaayo marmar nin waalanba iska qoranaho waxba ma qabeen waxii igu horeeyey aan soo arko wuxuu ahaa wasaaradda dalxiisko sagaarooyinka sharaxaadda hodhaalka aynu u naqaano mise dalxiiska sagaarooyin harimacad iyo waxyaaba noocaasa hodhaalkii wasaaradda sharaxaad looga dhigayo iyo dadkii soomaaliya iyo ubaxa kacaanka waa la jirjiiraya agyar iyo sagaarooyin hadarada aniga iyo dadka dhan u eg markii aan arkay hodheel dalxiiskii wasaaradda dalxiiska kasoo baxo hodheel dalxiiska hargeyso ku yaala biriijka hargeysa saldhiga ka sokeeya ayaanin hodheel dalxiiskii haddadaado in riwaayado runyihi soo eegaan danayaho waxaa le
daawadahatii warsangeliga kibiray iska xabashida soomaalida iyo baxkaanka iyo somaliland iyo jibuutiyaanka wadada guga markaa in riwaayadaha runyiin hore dalxiis aado yaa la hordheelka ku dhe waxaa lagu odhanayaa nin warsangeliyo magaciisa layaha bilaa break baa iskala in riwaayada iyo filmaanta runyihiinta qodobka labaad ee raba in aan wax ka taataabto qoraal iyo video inaan kusoo sheegay garan maayo 30 sannadood ka hor baa ku tilmaamay anuu horta 7 baa dhasho 1907 baan dhashay muqdishaan ku dhashay isbitaal banaadir dagaalkii xabashida somaliland dhasho aabbahay hidiidu alifaya soomaalidu markay qabsatay etoobiya ilaa abdisababo markay qabsatay ciisaha iyo ogaadeenka lagu yiraha waa xabashi waa etoobiyaan xabashi iyo etoobiyaleed degaan baa la yidhaha bise waa xabashi baa maye waxay ka mid yihiin ubixii kacaankee markii etoobiya la qabsaday soo noqon waayey ciisaha iyo ogaadeenka iyo geriga iyo akiisaha degan etoobiyaanka waa dadkii dagaalka xabashada soomaalida samaysamankiina dhacay kasoo noqon waaya waxay gacan kasoo noqon waayaan loo aqaana markaas anuu jigjiga jooga 22 sannadood ka hor baa waan yaaba suuqa markaan marayo gabdha qaal cuno inta cuno iyaba hiliba la kariyey waxayba noocaas oo somaliland markaa dowladda somaliland toos may odhan waana la cunaa eese waana cunaa toos may odhan eese warka waxay soo dhigeen war lahaa somaliland waa wasilada dahaba haddii yiraahdeen dadkii somaliland waa wasilada hiliba libaaxa soo maqlaya ka baqayaan intay markaa dowladdu intii libaaxa ka baqan libaaxa iyo xayawaanada dad xunkaasa shabeelka inta ka baqan bay lacagaha iyo shaambadaha ku sawiran dowladu marka libaaxa adduunkii soomaaliya ku soo noqdee libaaxa toosna ma orana waa dad ana hilib aari may dalban lacag badan may haystaan hilib aari ma dalban hilib geel ma dalban bis gabdha shiiradooda maraqa iyo qaada ah ayay cunaan ay cabbaan dad Soomaaliya baa ka baqaysan libaax iyo dowladaha ka baqo mayna dowladu waxba kama baqaan markay muslimiinta adduunku ku mudaharaaday madaxweynaha faransiiska iyo macaalinkii nebiga sawiray ee layidhi xalid macron emmanuel madaxweynaha faransiiska iyo macaalinkii nebiga sawiray layidhi xalid dal islaamka adduunka mudaharaadeen lamiga lama sawirka waxaan ku jawaabay waxaa sawiray the more developed dowladaha horumara sababtuna waxa weeye adduunkiina iyo wax walbo adduunkiina waa sawir sabuuradda iskuulka taablooda iskuulka sabuurad adduunkiina waa sawir sabuurad ku yeela marka macaalinkii adduunka ugu yaraa baanu ka baqnay inuu adduunka sabuurad ku dhex yaala sawir sabuurad ku dhex yaala masaxo macallimiinta laguma daharaado islaamka gardarna sidaa awgeed arrinta waxaa kaga jawaabay nebiga waxaa sawiray the more developed countries ayaa 22 sano anuu jigjiga jooga ayaa waxaan baadhbaaday intaan yaabay dadkii adduunka dhawaashay halkan ku hashadiibiyaan ag istaago waxaa yimi sininayaa senegal baa yimi iyo mansuur oo xidhna marka mansuur hadduu xidhna maxaa nahay mansuur ilaa u naxariistay xabaalaha jabuuti iyo ka jigjiga xabaalaha jabuuti ximbulo ku aasana mise jigjigu ku aasana mansuur
marka waxaan kaga jawaabay mansuur shan miix sida hadduu iibiyo waxaan ku yidhi mansuur baa toos oran kari waayey magaalo mise adduunyo aan ku aasanahay aan ka dhintay ku aasanahay jooga toos ma odhan mansuure hashishadu iibiye toos ma odhan magaalo aan ku aasanoo ka dhintan jooga odayo si sare oo yiri sidaas sirtaana waxay tahay hashishadu iibiye markaa senegaal ka mansuur kala shaqayn jiraa hashad gacanta ii geliyey waxaan ahay anugu ilaahiyada biliiska ilaahay naga raacno noqday reexdeedu waa alaalaha sodda alaha alaman walfan iyo fanka mise waxaan ahay xidig ay ciidanku qaataan bacatorayaasha mitunka karaboorti iyo khadara daahir iyo sosaneegar iyo fanaaniinta adduunka iyo atorayaasha adduunku waxaanu nahay xidigo kaansan diyagacmeedada sida dhulka aynu joogno iyo jupiter iyo mars iyo iiska aynu joogno dhulka aynu joogno kaansan baan naho waxaanu nahay saraakiil xidigo saraakiil oo waxaanu nahay xidigo ay saraakiisha amniga iyo saraakiishu garabka sultaan ay ku labistaan dariiskooda markay helanaya xidigaa ku yaalaa ciidanka iyo saraakiisha soomaa xidigaha aniga caali baa ka mid ah oo xidigtana way bilaamato oo hadda waxaan joogaa buurta caalimo saalimina ma maloobi buurta caalimo baan joogaayo fanaaniinta adduunka miton bagiyaasha khadra daahir aabay xudeedi waxay weli jiraan heestaa la yidhaha qur-aanka oo hadda kahor waa in idiin sheegay fanaaniinta adduunkii magacooda cali la yidhaha cali oo ka mid ah sagaashanka magaca ilaahay fanaaniinta cali la yidhaha magacooda mujisa idin beriyay fanaaniinta magacooda la yidhaha cali heesahooda waxaa ka mid a qur-aanka sida axmed cali igaal aniga cali xudeedi seef cali khaan way badan yihiin marka sheekada waxaan kusoo qaaday senegaal oo hashishada iibinaya mansuurna waxinaya ayaa wuxuu gacanta iga riday hashadu gacanta iga rido eeg baan isiri hashadu waxay noqotay hawaash hilibka hamuumka dheriyaha lagu karayo dheriyaha maraqa markaynu samaysanayno waxba kama garanayno sida gabdhuhu waxa u kariyaane maraqa dushiisa maraqa markay saaraan hilibka ayay daboolaanoo dheriga dushiisa ayay xawaash ku daadiyay xawaash hilib buu ahaa mise hamuum buu ahaa hamuumkaasaa uriyo gacantii ku dhigay markaasaan dukaamadii adduunka baadhay bis waxaan u ogaaday odayaal dumar caruur dadkii adduunku inay xawaash hilib hamuumka ka dhargiin hamuumka oo ah inay xashishad ka dhargiinoo waxaan u malayaa adduunku 90% waaran yahay way waasheenoo adduunkiina 90% markaa arkay inay waasheen waxaan ogaaday in xawaash hilibka hamuumka oo ah xashishad ay cabbiinay ka dhargiin dabeedna adduunkana way waasheenoo saasaa u sheekeeyo haddadaa waxaa laga xawaash hilibka adduunka ha laga qabto isug nimayo aad baa idin salaabay muddo dheer wax la-aan baan ahayo haddii ay soo caawinayo amal international somali baxma account bangi ku leeyahay akoonkayga nambarkiisuna waxa weeye 22 telefoonkayguna waxa weeye eber 252 telefonkaygu waa eber 252 afrika soomaaliya gobolka sanaaga magaalada barna magacayga cali xudiye